tacab ay dhowr toddobaad ka hor ku sameeyeen mid ka mid a beeraha ay wax ku abuuraan ayay maanta kormeer ku sameynayaan Hani Xuseen Warsame iyo qaar ka mid ah saaxiibadeed. Gabdhahan oo bartay cilmiga beeraha kuna midaysan ururka gabdhaha beeraleyda ah oo loo soo gaabiyo Saaga ayaa sanadihii u dambeeyay ku howlanaa tala siinta dadka beeraleyda ah tacab iyo wax soo saar. Qudaar iyo dalagyo kala duwan ayaana ka mid ah waxyaabaha ay gabdhahani soo saaraan sida ay noo sheegayso Hani Xuseen Warsame oo ah xogayaha guud ee ururkan. anaga horta si guud waxa aan sameeyno waxa way markood waxa sameeynaa la talin marka labaad waxa sameeynaa wacyigelin sidoo kale tan waxa sameeynaa tijaabooyin marka beeraha dadka u tagnane yani dadka wacyigelinta kale dadka waa siinaa xilliyada tusaalahan waxa ka wacyigelinaa kale cudurrada markaas taagan oo kale xilli abaareedka maadaama Soomaaliya inta badan waayadan dambe abaar ay u saameysay fatahaad oo kale ayadana waa ka wacyigelinaa dadka si lamida marka maadaama anaga dad wax barta aan nahay badana si standard ah u wacyigelinaa oo heerka maanta dunida oo mara ku dabaqnaa inay wax soo saarkooda ayagana ay ku saleeyaan tusaalahan in ay yareeyaan oo kale sunta cayayaanada ay u isticmaalayaan iyagoo isticmaalaya waxyaabo oo organic ah 14 bishii Janaayo sanadkii 2014 oo la aasaasay ururkan ilaa ay hadda ma jirto cid si gaar ah garab ugu siisa howlaha waxbeeridda iyo la talinta ah ay gabdhahan sameeyaan marka laga reebo tartan ay u galaan qabashada shaqadan. Saaga ahaan xaaladda hadda aan ku jirno ma jiraan waxna saacida ama nacaawiya haday ahaan lahayd howlahan ka qabanayna fieldiga haday ahaan lahayd transportation-ka anaka u baahanahay iyo howlaha ugu baahanahay ma jirto hadda waxna caawiyo laakiin waxa jira ururka inta uu soo jiray maadaama muddo dheer aan shaqeynayno hay'ado oo ka qayb qaatay caawinaadeena ama yani waxyaabaha qaar naga caawiyay taasna waxa kamid ah hadda ka hor tartan aan ka qayb galnay bulshada oo aan si wanaagsan u fahamsanayn muhiimadda ay leedahay iyo baahida loo qabo shaqada aan qabano iyo inaanan haysan taageeradii aan u baahnayn si aan horumar intan ka fiican u gaarno ayaa kamid ah caqabadaha aan sida joogtada ah ula kulana ayay tiri Hani Xuseen Warsame. anaga urur ahaan caqabadaha qabno waxa kamid ah bulshada kale caqabadaha ka qabnaa ina adoo gabar ah inta baxid bulshada hortagtid Soomaali haddana aan wax u sheegto way adagta second xaga oo siyaasadda kale caqabadaha ka qabnaa waayo inta badan activity-da aan sameynayno waxay hoosgalayaan dawladda iyo waxaas xafiisyada dawladana waa ogtihiin systemka ay ku shaqeeyaan marka qaar waxa dhici karto wax maanta lagu qaban karo in hal sano la si ka dawo wareejiyo ama dhowr bil ay qaadato kale sidoo kale tan wax wixii lagu talagalay adiga hadda in case xataa ay heshid inaad sidii lagu talagalay aad u helin waxa ay kale saddex meelood meel ay heshid kale in qofkii aad tartamayseen oo kale hadii tusaalahan anaga urur kale oo raga ama NGO kale daala tartamayno kale inaa helno waxa iyaga helan oo kale way adagta afar xilli roobaad oo aan sidii la rabay dalka uga diin kayd biyo oo aan dalka ka jirin iyo sidoo kale inaysan u sahlanayn beeraleyda helida waxyaabaha laga maarmaanka u ah tacabka beeraha ayaa sabab u noqday in hoos u dhac weyn uu ku yimaado guud ahaan wax soo saarkii beeraleyda. Fatxi Maxamed Axmed, warbaahinta Bilan, magaalada Muqdisho.